xeelada koowaad ku soo dar hadalkaaga hal eray oo English ah markaad af Soomaali ku hadlayso sida inaad isticmaasho markaad hadalka bilaabayso oo kale laga yaabaa bedelkeeda af Soomaali ku dhiilahayd waxaad dhahaysaa maybe haddii aan dhamaystirto muuqaalka inaan wax badan ka faa'iido xeelada labaad marmarka qaar ku soo dar hadalkaaga jumlada English sida inaad dhahdo ani saasaan ka wada you know ayaad gadaal ka raacinaysaa hadalkaaga macnaheedu waxa weeye waa fahmaysaa Soomaha laga yaabaa inaad adeegsato xeeladahan igu sheeg commentiga haddii aad taqaano qof aad u isticmaala xeeladahan xeelada saddexaad markaad English ku hadlayso isticmaal filler words waa eray lagu buuxiyo aamusnaanta bedelkeeda aamus lahayd markaad wax soo xasuusanayso waxaa isticmaali kartaa erayadan si la mid ah dadka u dhashay luqadda waxaa lagu buuxiyaa aamusnaanta let me think about it bal aan ka fikiro common phrases qof markaad salaamayso waxaa dhahaysaa hi ama hello waan ku salaamay waxaa jira kuwa kale oo la macno ah muhiimaddu waa inaad mid kaliya ka xifdiso isxaal waraysiga how are you sidee tahay how is it going iwar maxaa isa what's up iwar warkiisii what's new maxaa kaa cusub isla salaamidda waqtiyada kala duwan ee maalinta good morning subax wanaagsan good afternoon galab wanaagsan good evening casriye wanaagsan good night habeen wanaagsan markii aad salaamayso qof aadan cabaar arkin long time no see cabaar ismaana arkin where have you been halkee jirtay markii aad qof weydiinayso inuu wax kugu celiyo could you say that again ma iigu celin kartaa sorry I didn't catch that sorry ma maqlin taas can you repeat that ma iigu celin kartaa markii aad muujinayso inaad fahamtay I understand waan fahmay I get what you're saying waan fahmaya waxa aad leedahay markaad qof aad raali gelinayso waxaad dhahaysaa I'm sorry waan ka xumahay my apologize waan kaa raali gelinayaa my bad waa qalad iga dhacay waan ka xumahay markaad wax ka shakisan tahay waxaad dhahaysaa I have my doubts shaki ayaan ka qabaa I am a bit skeptical shaki ayaan ka qabaa markii aad qof u sheegayso inuu ku sugo wait a minute daqiiqadii sug just a moment please wax yar la isug markii aad wax la yaabto aad aamini weyso waxaad dhahaysaa no way ma dhici karto you are kidding waad igu ciyaaraysaa are you serious kaadhab miya oh really alla runtaa miya markii aad qof wada kulantaan waxaad dhahaysaa nice to meet you kulan wacan it is pleasure to meet you farxada ii tahay la kulankaaga markii aad muujinayso inaadan xiiseynaynin waxaad dhahaysaa I don't like it kama helo waxaan I'm not really into it kama helo runtii that's not my thing waxaan xiiseey maahan markii qof aad hadalka ka dhexgelaysa si xushmad leh waxaad dhahaysaa excuse me can I say something iga raali noqo wax ma ku dhihi karaa can I add something here wax ma kugu darsan karaa markii aad ka falcelinayso war wanaagsan waxaad dhahaysaa that is awesome waa si fiican I'm so happy for that aadaa ugu faraxsanahay markaad muujinayso inaad wax ka xun tahay waxaad dhahaysaa I'm really sorry to hear that aadaa uga xumahay taas that's terrible waa waxa aad iyo aad u xun markii aad hubinayso in qofka aad la hadlayso uu ku fahmayo waxaad dhahaysaa do you get what I'm saying ma fahmaysa waxaan ku leeyahay are you with me so far ma ila socotaa waa i fahmaysaa Soomaha marka aad muujinayso inaad ku raacsan tahay wax qof kale exactly sax aad iyo aad absolutely aad iyo aad you are absolutely right waad saxan tahay markii aad qof tala weydiisanayso waxaad dhahaysaa any suggestions maxaa ii soo jeedinaysaa what do you think I should do maxaa is leedahay way fiican tahay inaan sameeyo what do you think I should do maxaa is leedahay way fiican tahay inaan sameeyo markaad si lama filaan qof ula kulantid never thought I'd see you here uma maleynin inaan halkan kugu adkaay where have you been hiding yourself halkee jirtay waa lagu waayee